Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hambalyo u diray maamulka cusub ee Waqooyi Bari. Madaxweynaha loo doortay Cabdiqaadir Cali Firdhiye iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war ka soo saaray doorashadii maanta ka dhacday magaalada Laascaanood ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Cali Firdhiye iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulkaasi Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guul u rajeeyay madaxda la doortay, wuxuuna Alle uga baryay inuu Alle u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee loo igmaday. Hogaamiyaha la doortay ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya waxaan Eebbe uga baryayaa inuu u fududeeyo mas'uuliyadda adag ee loo doortay oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka dhismaha hay'adaha dowladda, xoojinta midnimada jirka bulshada deegaanka, adkeynta amniga, xaqiijinta higsiga deegaanka, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale wuxuu bogaadiyey xildhibaanada iyo guddoonka iyo guddiga doorashooyinka, musharaxiinta iyo laamaha amniga, isagoo ku adkeeyay inay bulshadu iyo hoggaanka Waqooyi Bari Soomaaliya ay xoojiyaan midnimada iyo wada shaqaynta ku aaddan nabadda iyo horumarinta. Horeyna dhambaalkan la mid ah waxaa diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Firdhiye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Waxaan u rajaynayaa madaxweyne Cabdiqaadir Cali iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu ka yeelo hoggaan mideeya bulshada Waqooyi Bari Soomaaliya, kana shaqeeya nabadda, horumarka iyo dowladnimada. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay garab istaagto dowladda cusub ee maamulka Waqooyi Bari si wadajir ah loogu xaqiijiyo dhammaystirka federaaleynta, ayuu yidhi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kale oo uu ku adkeeyay bulshada iyo hoggaanka cusub ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari adkeynta iyo midnimada, wadajirka iyo iskaashiga si looga gudbo caqabadaha jira loona gaadho horumar waara.